goorsheegtadu waa saddexdii habeenimo saq dhexe waxaa magaalada Garowe iyo magaalooyin kale oo Puntland ka bilaabmaya safar mas'uuliyiin ka tirsan urur siyaasadeedka ka ah ay ku tagayaan gobolka Gaardafo si ay uga qayb noqdaan wacyigelinta bulshada ee isdiiwaangelinta doorashada loo madlan yahay horaanta bisha koowaad ee sanadka 2023 waftiga oo ka koobnaa xubno ka tirsan golaha xukuumadda oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Axmed Maxamed Yuusuf Labeeg, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda Puntland Axmed Shire Siciid, wasiirka wasaaradda tamarta biyaha iyo macdanta dowladda Puntland Caarshe Siciid oo Muuse, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha Qaasim Maxamed Yuusuf, wasiiru dowlaha wasaaradda dekedaha Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo, xubno ka tirsan golaha dhexe urur siyaasadeedka ka ah garabyada ururka ee dhalinyarada iyo haweenka. Socdaalkan oo qayb ka ah kamira dhalinta hanaanka doorashada qof iyo cod ee Puntland ayaa mas'uuliyiintu xilli hore oo subaxii ay ku kulmeen deegaanka Fallujah ee gobolka Bari, waxaana ay laamiga uga degeen dhanka bariga deegaanada Sabankaab iyo Kobdhaxaad oo ka tirsan degmada Ufayn. sii maridooda waxa ay wafdigu la kulmeen bulshada deegaanada Barako iyo Dharjaale ee degmada Isku Shuban oo si iskooda u soo baxay inay u soo dhaweeyaan wafdiga ka socday urur siyaasadeedka ka ah. حسبي وحياة الله صالحة وحقوق ويلا عن الظلمية ديار باونا حسبي كهنا حسبي والله مليا كهوة هليسا حقوق دينا وكيليسان كهدو إلهي هذا مركب واحد سمينا ديوانجلينت مركب ليلي ما شنت بيش سفع عن سود ديوانجلية دورشويك وبالعميان دول كانوا على معنا يا جاري واجا ونلي إن شاء الله ديلا إلى عدكينا هليسان كهنا وحكي هليسان نول بحقوق دي سهلية قبله وحن ربا وحيرا فرينا أو رجع إذن كجا جارينا إذن ده برشوا عن أنا بكون كوين كقرطبة هاي وقتها وزير ذو كامل يانا ماشي مريبان كم ده وحن ربا فرينا إذن ده قبله عدكينا وحكونا هاي وحن ربنا الديوان جلين تبع سودو إن أتقوليها كصوب بحضان إن الديوان جلسان قبلي إن مقالة شوكتا وحي وحكوتاي تينا تولد شوكتا باهيدي إنه وحا كترجمي كرتان مالنتا عاد عدكينا أو حرقي حلالة ديبتان من فضلا ديوان جلين دكا قيب قاتا صوبحا قوليها كصوبحا نظام كقفي عدبا دلكو ودريري وإنا كقيب قادتان dalku waxa way waa wada kaahaysay waa ina xisbiga kaax codkiina siisaan shacabka. gudoomiyaha deegaanka Dharjaale ayaa hadallo soo dhaweyna ka jeediyay munaasabad kooban oo ay yeesheen labada dhinac. waxaa noo yimi waftigii ka socday guddiga kormeerka oo ah wasiiradii iyo wufuudii kale oo la socotay oo ururka ka ah baa noo yimi maantay. waxaanu aad ugu faraxsanahay inay noo yimaadaan oo aanu aragno inay noo yimaadeen oo aan baahidayada uga waranno iyaguna nooga waramaan wixii naga dhiman ururka ka waa soo dhaweynaynaa weydii soo dhaweynaynaa soo dhawaada. waxaanu marka hore sheegaynaa meeshaan aan joogno Dharjaala la yiraahdaa Baraka la yiraahdaa tuulooyinkan ummadii joogtay waa guurtay waa qaxeen abaar baa dhacday waxay u guureen Bayla iyo Qandala iyo Xaafuun baa loo kala guuray ummadii ma joogto. marka koobaad waxaanu lahayn markii wasiiradu idin yimaadaan waxaan su'aashaan dadka iyagii ma waxaanu ka soo inaanu soo gurrabay ku banaan yihiin mase meelaha ay joogaan annagay noo codaynayaan la geyn karaa. taas waa idinka ka jawaabi doona. tan labaad meeshu waa meel abaara oo 2 sano rooma qaban ummadda joogtaa waa baahan tahay
wasiiru dowlaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda Puntland Yuusuf Maxamed Wacays Dedo ayaa sheegay in qorshaha socdaalkooda uu qayb ka yahay la kulmidda bulshooyinka degmooyinka Xaafuun iyo isku shuban ee gobolka Bari kadib markii ay soo dhameeyaan safar ay waftigu ku tagayaan guud ahaan degmooyinka gobolka Gardafuur. marka hore reer Lajaale waxaan ka mahadcelinayaa sida dirana noo soo dhaweyseen. marka kale annagu horta waxaanu nahay wafti in badan ka kooban golaha xukuumadda oo badan howlwadeeno kale oo dawladda ah. safarka iyagu wuxuu ku wajahan yahay gobolka Gardafuur iyo 2 degmo oo ka tirsan gobolka Bari. dhammaan gobolka Gardafuur degmooyinkiisa oo dhan baan u soconnaa iyo 2 degmo oo ka tirsan gobolka Bari. degmada reer Lajaale ka tirsan yihiin waxay ka mid tahay 2 degmo oo gobolka Bari nooga haray. waxaanu go'aansanay inaanu maalinta ugu dambeeya aanu iyada nimaadno. hadda wixii aanu qaban lahayn, wixii aanu wadno, wixii ballanqaada salaam baan horta u istaagnay. gudoomiyahana waa la soo hadalay. wixii arintayada iyo fadhigayaga iyo soo baxayaga iyo su'aalaha iyo jawaabaha iyo waxaanu ka doonayno iyo mustaqbalka sida la yeelayo waxa weeye waa isu soo noqod. hadii la yiraahdo 4 beri ama 5 beri baanu ka maqannaa waxay noqonaysaa lugta ugu dambaysa meesha ugu dambaysa oo conclusionka ah oo kormeerka iyaga ugu dambaysa barako iyo waxay noqon doonaan Lajaale. socdaalkan ayaa qayb ka ah socdaalla ay mas'uuliyiin ka tirsan urur siyaasadeedka ka ay ku marayeen gobolada Bari, Karkaar iyo Gardafuur si ay uga qayb qaataan wacyigelinta isdiiwaangelinta doorashada loo madleeyahay bisha fooda inagu soo haysa.